bilaal midda baaris ku bedelo maalin kasta wax buu ogaadaa wuxuu la sheergareeya macluumaadkiisa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن مركز فيديو عصب جنة كان نقل ساعتين ومسين جنة لأنه هو مسين سؤال هذا مال وناكسن هبين وناكسن صبح وناكسن ظهر وناكسن عصر وناكسن كل شيء وناكسن أصحابتي بس بسود هذا أصحابتي رجوك سكر سود هذا دمينتي مسود هذا دمينتي ما يدري على هاي إن شاء الله مركز إيميل كستبة دمينتي ومسنتهين بليز جنة كذا كويسة سبسكرايب لايك شير كوم صاحب لو تقعد مسدا سبسكرايب دكتور إنه لايك كري إنه شير كري دمينتي بس تي دمينتي ما يدري على هاي إن شاء الله هو حنوضع قصة هلو تيم قصة سود هذا تيم قصة إن شاء الله قصة حواي قصة درس ومرك إن شاء الله بحرجينا إني سبارت تويا لنا وبارت وين كأي كسر قبل قبيها تويلا هي راحلو نوبلابا قصة وحكي كده عادي ذلك يوكي هلا راديو كي نسودوية فملي أمزين ونادي صلصعبو إن شاء الله نوبلابا قصة وحكي كده عادي قبل لكم مقعد نتاليا هيجس وأصدني فرجرة يا من كده لكم مقعد دوزن وأفرتنجرة labadoodu waxay ku noolaayeen Manchester waxayna ahaayeen family isqaba ilaa iyo 2 sano iyo bar sida la sheegayo qisadaana waxay dhacday sanadii 2001 suubarka insha Allah waxaa dhacday labadoodu waxay ahaayeen dad isku faraxsan waxay isku dhaleen ilmo hal wiil isku dhaleen ayaga iyo wiilkooda maxadad isku ah labadooduna waxay dad shaqeynaayo gabadha asalkeeda waxay ka soo jeeday dalka Mareykanka laakiin waxay ku soo kortay oo ay ku soo barbaartay oo ku guursatay dalka Ingiriiska soo markay Ingiriiska degan tahay waxay ahayd laba qof oo isku faraxsan waxaa dhacday in wiilka uu yimid wiil saaxiibayihiin waliba uu yimid maalin joog ahaan yacni qaraab salaan Soomaal qaraab salaan dhacda uu yimid wiilkii markuu la joogay oo wuxuu u sheegtay sida la sheegayo intaas qasada ku dhacay reerka wuxuu sheegtay duruuf fara badan inay haystaan soo marka uu baahan yahay inuu la dago oo yacni ay siiyaan hal week oo jaanis ah uu kula joogo reerkii waxay yiraahdeen okay nala deg reerku waxay deganaayeen ilaa iyo 4 maqsin ama 4 qol ay deganaayeen isla markii way aqbaleen ninkii wuxuu keensaday gabar ay saaxiibayihiin sida uu sheegay waliba ay isku faraanti galiyeen gabadhii ayaga wada joogeen reerkan way wada deganayeen guriga 2 qol ay degan reerkana 2 qol ay deganaayeen maadaama ilmahoodu uu yahay ilmeer ayaguna yihiin dad shaqo tagaa laakiin dadkan ma aysan shaqo tagi jirin guriga joogi jireen waqti kasta guriga xaadir ku hayeen sabab ogtihiin يعني إلكترونيك ما نسوي هاي شل سوي هاي اسمه لها صبح كستو وحياة الصبح وهذا وجينا كصبيرة سو ما قصدي حد عليه بيره دورسون دوري توصل كل هذا كسوريكتي والله بدكون يكودي إن شاء الله وحد عليه مركز تبع ويلك وحولي جري دروف هاي هسته العقبان وباهنه كم وباهنه إلا غير كحلي ذخار العقد ذيك أما أيضا بشكوي كلا برئيس الجوجين sida la sheegay ninkan kala wuxuu haynin isticmaalay yani khamri aad fara badan waliba khamri bila xadad ah aad u isticmaalo waxa dhacday in maalin Natalia Jesse guriga markay timid ay aragtay ninkan iyo xaaskiisa oo fatashay qolkooda hurdada waliba kabarada ama armaajooyinka qolka fatashay markaas waxay ku jireen sida ayaga ay sheegayaan in maxaad fatashaysaan maxaa idinka dhulmi wax la mid camal ah laakiin waxay ku rahdeen gurigan waxaan u nimid ma ahan inaan maalin joog nimaano laakiin waa inaan guriga la wareegno waliba aan sameeyno cadeymo far badan oo kala wareegayno gabadhii waa khaylisay isla markiiba gabadhii meeshay waxay ku dhufteen way suuxday marka ay suuxday waxa yimid meel bay ku qariyeen waxa yimid hadana ninkan marka hore keenay gabadha ninkeeda yimid markuu yimid asigina waxay sagrigan dad fiican qolka fadhiyo film fiirsanay habada isaga dhigan markuu yimid ninkii saaxiibkiisa ahaa kijada sidoo sheegay yani waxaan dhanjastay waxa qaranayo oo sheegayo waa ninka saaxiibkiisa wuxuu yiri isla markiiba ninkii markuu kijada aaday uu soo laabtay kafay soo sameystay anigana waan baxay kijadan aaday deedna wax baan soo qabsaday madaxa kaga luftay asna meeshii ku suuxay labadoodu waan xirxiray yani xaaskayga ama saaxiibtay isla xirxirnay markay soo kacayna waxaan ka doobnay cod ah ay leeyihiin waan baxnay
gurigan waxaan kaga tagaynaa dadkaas dalxiis baan aadan oo soo laabanayna because cadeen hadhow dilir aaw reerkii guriga lahays u yiraahdaan waa kana codkooda way baxeen meel bay aadan way soo laabanayaan guriga anaga usii joogayna isla markiiba codka markay ka heleen sida la sheegayo yacni lama oga qaabkii loo dilo reerkan laakiin waxaa dhacday reerkan in la dilo weliba la waayo waxaa dhacday markii 2 bilood iyo yacni dhimashadooda markii kasoo wareegtay 2 bilood iyo in boolis in guriga uu yimid yacni qof raadinayo weliba dadka jaarka ay sheegeen guriga in dadka lahayd dadkii deganaa dad aan ahayn ay kasoo baxayaan dadkii deganaana aysan ogeyn meel ay aadeen isla markiiba qof aa yimid oo ka socda yacni dhanka booliska guriga waxaa la reerka aawo codkii bay daareen waxay yidhaahdeen reerkaa safar bay aadeen waxaan nahay ninka walaalkiisii wilaashiis baan nahay soo aniga guriga nooga sii tagay maadaama ayaga ay baxeen ilmihii yaraana ayaga haayo dalxiis aadan ilmihii waa kana anaga guriga laga tagay guriga markay justin ninkii markuu soo galay wuu fiirfiiri wuxuu ka waayay wax oo yacni raad ah ama waxyaabo oo inuu ka dhacay guriga yacni dembi inuu ka dhaca huwa isla markuu iska baxay lama ogaanin saasuu ilmihii yaraa ku koray weliba ilmo yar oo waalidkiisa guriga lagu dhex dilay siduu isaga koray waxaa dhacday markii iskuulka la geeyay ilmihii yaraa hadda waa ilmihii yaraa wax hadlaya ilmihii yaraa markii iskuulka la geeyay oo waalidiinta yacni waalid kasta ilmihiisu geynaa wiilkan waxaa geeyay dadka hooyadiisi aabihiis dileena iskuulka geeyay markii iskuulka la geeyay waa la sheekaysanaa ilmihii yaraa waxay ku dhahdeen hooyaday aabaha aaway markaas wuxuu ku yiri hooyaday aabahay safar bay aaday sida la ii sheegayo laakiin maalin kasta waxaan maqlaa dadkaas oo dhahay labada qof guriga soo dhahay ama maalin uu nala ogaada dambigan aan sameyn wax saan maqlayaa soo marka ma aqaani isla markiiba meesha wuxuu bilaabay cunuga inuu dambi baar isku bedelo ilmihii yaraa dhowr jirka ahay wuxuu bilaabay inuu dambi baar isku bedelo maalin kasta wuxuu ogaadaa wuxuu la sheergaray macallimada iskuulka marka waxay bilowday inay booliska la sheergarayso ay ku dhahday ilmaha yar hooyadiisa aabiis safar ma jira because ma dhici karto ilmo yar hooyadiisa aabiis intaas oo san ay maqan yihiin dad kaga tagaan ma dhici karto ilaa ayadoon soo wargelin iskuulkii meelka soo wargelin ma dhici karto boolisku inay gurigaas baaritaan ku sameyseen isla markiiba guriga waa la yimid waa la baaray wax kiis ah ama wax cadeen waa laga waayo waxaa la xiray dhinkii naagta la xiray ayagaa la wareystay weliba wareysi qaat ilaa 12 saacadood ku dhawaad markii la leeyahay kadib waxay qirteen inay reerkaas dileen weliba ay duugay 12 sano guriga ku dhex dilay laakiin ay ku duugeen guriga banaankiisa bari horena ay tahay saas daraadeed sida u dilayna waxay tahay yacni gurigan ay lahaayeen guriga reerka milki ahaan u lahaayeen reerkan guriga ay lahaayeen waa guri aad u qurux badan nolosha ay haysteen oo ahayd nolol aad u qurux badan soo marka labadeena maadaama aan noqonay dad yacni aanan ku jirin listiga oo muqaadaraad isticmaalay waxyaabo fara badan isticmaalaya oo nala nacay hadda waa nala nacay oo waxba aanan ahayn waxaan go'aansan inaan reerkan aan qaab saaxiibtinimo ku soo galno kadibna aan noloshooda kala wareegno si ugu yaraan xitaa lacagaha keedku ah iyo wax keedku ah aan muddo kusii noolaano saasaan nagu qasabtay isla markiiba boolisku waxay bilaabeen baaritaano meesha ay sheegeen la tagay meesha maxaa loogu tagay because dad beri hore la dilay waxa uu loogu tagay waxay tahay lafihii markii la baaray hiddasidii iyo wixii markii la baaray koleyba sida ay sheegayaan waxaa caddaad inay ayaga yihiin hadda waxa la ogaanaya yacni markii ay dileen kadib waxaa la ogaaday qislaan in reerkan ay dhinteen 2015 la ogaaday reerkan inay dhinteen oo saas lagu waayay isla markiiba ninkii inaagta waxaa lagu xukumay xabsi daayin ilmihii yaraan maadaama uu ku dhawaa cabaar uu noqday oo 10 jir camal uu ku dhawaaday waxaa lala wareegtay dowladda hantidii wixii dhan dowladda wixii dhan la wareegtay ninkii inaagtan xabsi daayin ay galeen soo marka meesha waxa kaaga muuqato waxay tahay xilliyada qaarna aadan soo dhaweysan qof asxaab ah qof aadan yacni si fiican aadan usii garanayn oo saaxiibtinimo uun hay ay tahay inaadan soo dhaweysanin because maanta waxa la isku dilo waxa u badan waa saaxiibtinimada qaarkeed masuug ay ka daran tahay soo marka insha allah qasadintaan ay ku dhan tahay raali noqdo codka iga xiraan qasadintaan ay ku dhan tahay dhammaantiin waa sidii dhammaantiin waa jeclahay channelka subscribe ka ilaabina like share commentiga dhammaantiin